السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka aad hadahan oo kale ka daawataan Gra TV qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo aan baxay dalka Burundi xilli ay xiisad siyaasadeed ka dhaxaloosan tahay dalalka Soomaaliya iyo Kenya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo daahfuray mashruuca dhismaha wadooyin isku xira Muqdisho Afgooye iyo Jowhar ganacsatada jaadka ee dalka Kenya oo ku hanjabay ka helay dhigiisa dalkaasi Burundi madaxweyne Farmaajo iyo dhigiisa dalka Burundi mudane Pierre Nkurunziza ayaa ka wada hadli doona xoojinta iyo horumarinta xiriirka labada dawladood iyo sare u qaadida iskaashiga dhinaca nabadgelyada Burundi waxa ay ka mid tahay wadamada dadaalka ku bixinaya nabadeynta iyo xasiloonida Soomaaliya waxaana ciidankeeda qaybta ka ah ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ay ku hawlan yihiin sidii Soomaaliya ay nabad ugu soo dabaali lahaayeen wafdiga qaybta ka ah booqashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa kulamo lagu lafaguraya adkeynta wada shaqeynta ka dhaxaysa labada dal iyo danaha ay wadaagaan waxa ay la yeelan doonaan dhigooda dalka Burundi jawaabtay ay ku tilmaantay hadalka ka soo yeeray dawladda Kenya wax laga xumaado haddaba hadii aynu eegno wararka ku saabsan khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ganacsatada qaadka ee dalka Kenya ayaa ku hanjabay joojinta qaadka ay keenaan Soomaaliya khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa u muuqda mid saameyn weyn ku yeelan kara ganacsiga ka dhaxeeya labada dawladood waxaana ganacsatada qaadka Kenya ay ku hanjabeen inay joojinayaan qaadka ay keenaan Soomaaliya afayeenka ganacsatada qaadka ee dalka Kenya ayaa sheegay inay joojin doonaan qaadka ay keenaan Soomaaliya hadii ay sii wado Soomaaliya muranka dhinaca badda ee xilligan kala dhaxeeya dalka Kenya waxa uu yiri uma dul qaadan doono in Soomaaliya markasta noogu hanjabto joojinta qaadka aan geyno dalkooda marna qaadka kuma iibsan karno madax banaanida dalkeena ayuu yiri afayeenka ganacsatada dalka Kenya ee qaadka ka ganacsada dawladda Kenya ayaa dhaqaale fara badan oo lagu qiyaasay 100 milyan oo shilinka Kenya ka hesha qaadka ay u soo beecgeyso Soomaaliya waxaana sidoo kale xusid mudan in gudaha Kenya ay ganacsiyo waaweyn ku leeyihiin Soomaali fara badan oo dalka ka cararay markii ay ka curteen dagaalada sokeeye dawladda Kenya ganacsatada qaadka ka ganacsada hadii ay ku dhaqaaqaan go'aankan ay ku hanjabayaan ee ah inay joojinayaan qaadka ay u soo beecgeeyaan Soomaaliya waxa faa'iido badan ku qabi doona dadka Soomaaliyeed oo markaasi dhibaato weyn kala kulmaya qaadka ay Kenya u soo beecgeyso Soomaaliya waxaana Kenya halkaasi ay ku weynaysaa dhaqaale badan oo ay ka heli jirtay Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta daahfuray bilaabashada mashruuca lagu dhisayo wadooyin xiriiriye Muqdisho Afgooye iyo Jowhar dawladda federaalka Soomaaliya iyo shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo ku guuleysatay dhismaha wadooyinkan ayaa kala saxiixday heshiis ku aadan sidii loo dhisi lahaa wadooyinkaasi madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan
ka hadlay xafiis diblomaasiyadeed oo dalka Kenya uu ka furanayo Somaliland taasi oo ka dambeysay kulamo wasiirka iyo madaxda dawladda Kenya ay wada yeesheen kadibna Kenya ay ku qanacday inay xafiis ka furato Somaliland qaasatan Hargeysa isla markaasina hawshiisu ay iminka marayso meel gabagaba xafiiskaasi sida uu sheegay wasiirka amuraha dibadda ee Somaliland waxa kale oo wasiirku uu inta raaciyay inaanay Somaliland u baahnayn hadal badan oo meel kasta laga yiraahdo iyo wax kasta in laga jawaabo isagoo xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta xukuumadda dhaliilsan u soo jeediyay inay noqdaan kuwa u bisil siyaasadda Somaliland oo ay u kala calaamadsan tahay waxa hadalka u baahan iyo arrimaha ay tahay sida wadajirka looga wada shaqeeyo waxa kale oo inta raaciyay in xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi in qorshaheeda uu yahay inay Somaliland mar dhan walba ay gaarsiiso wax kastana ay ka hormariso danaha shacabka Somaliland isla markaana xukuumadda ay ku hawlan tahay horumarinta deegaanada Somaliland wasiir Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ay qaaday xukuumadda Soomaaliya
oo gudoomiyaasha maxkamadaha sare iyo maxkamadaha iyo golayaasha dastuuriga ah ee dalalka Afrika ay leeyihiin. shirkan ayaa inta uu socdo waxaa diiradda lagu saarayaa hanaanka hufnaanta xukunka maxkamadeed iyo isdhaafsiga waayo aragnimada garsoorayaasha Afrika, waxaana sidoo kale shirkan lagu soo bandhigi doonaa sharaxaad ku saabsan waxyaabaha ku jira go'aanka maxkamadaha dastuuriga ee dalalka Afrika. shirkan ayaa Soomaaliya waxa uga qayb galaya gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed. waxaan magaalada Qaahira kaga qayb galaya shirka heerka sare ee gudoomiyaasha maxkamadaha sare, maxkamadaha iyo golayaasha dastuuriga ah ee dalalka Afrika oo ay sanadkii saddexaad oo xiriir ah marti gelinaysa dawladda Masar, ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya. shirka oo furmay Sabtidii ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Masar, gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah ee dalka Masar, wasiirka socdaalka dalka Masar, wasiirka korontada iyo mas'uuliyiin kale oo dawladda ay kaga dhawaaqeen 5 mashruuc oo uu ku taageerayo sanduuqa nabadda ee qaramada midoobay Soomaaliya. munaasabad lagu qabtay Muqdisho ayaa lagu xusay muhiimadda ay mashaariicdani u leeyihiin xalinta khilaafaadka iyo qaab dhismeedka dawladnimada iyo taageerasiinta bulshooyinka barakacayaasha. munaasabada mashaariicda lagu daafuray waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye, agaasimaha wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Yuusuf Cali, ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogayaha guud u qaabilsan Soomaaliya Batar iyo
agaasimaha UNDP ee Soomaaliya waxa kale oo kulanka ka qayb galay xubno kale oo ka socday beesha caalamka wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriya ayaa sheegay in qaramada midoobay kaga mahadcelinayaan mashaariicdan ay ku taageeraysan nabadda Soomaaliya ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogayaha guud u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in sanduuqa dhismaha nabadda ee qaramada midoobay uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato dhismaha nabadda ee Soomaaliya ugu dambeyntiina wararka Soomaalida ka baxsan hadii aan eegno dalka Pakistan oo ay ka sii yaraanayso lacagaha qalaad wajahayana lacag yari iyo la tacaalida dhibaatooyin dhaqaale ee mustaqbalka ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay dhaxal sugaha Saudi Arabia Mohammed bin Salman waxaana si fudud loo fahmi karaa sababta ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu si degdeg ah ugu baahan yahay lacago dhaxal suga Mohammed bin Salman oo loo yaqaano MBS ayaa soo gaaray Pakistan isagoo oo ballan qaaday lacag balaayiin oo dawladda Sacuudiga ay ku taageerayso Pakistan balse lacagta ayaa ah qayb kamid ah xiriirka qotada dheer ee u dhaxeeya dalalka Sacuudiga iyo Pakistan ayaa noqotay halkii ugu horeysay ee uu booqdo safarkii